بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن داود يا الله halkani waa telefishinka caalamiga SBC xaruntiisa labaad oo TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho waxaad ku soo dhawaagtaan daawadayaal barnaamijka way arag oo toddobaadkiiba mar idin kaga imaada xafiiska labaad oo TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho toddobaadkan barnaamijka waxa idin la socodsiin doona soo saaray anigoo Cabdirashiid Sandheere waxaana marti igu ah kumanaan jeer u mahad celinaya Malaaq Moorshe Jeelani Sheekh Muumin Caalin oo kamid ah way joogii hore Soomaaliyeed ahna waalid Soomaaliyeed ugu horeen Malaaq Jeelani soo dhawow waana ka mahad celinayna waqtigaada qaaliga TV-ga SBC ku soo dhawow su'aalaheena ugu dagaleena ugu horeen way joog hore tahay taariikhda hadda dib noo xasuusisid magacaaga saddexan iyo halka ku dhalatay iyo halka ku soo barbaartay iyo halka dugsi Quraan ku soo baratay intaba aniga waxaan markan ku dhashtay marka yani meel badan oo ka soo shaqeeyay yani waqti Maxamed Siyaad Barre yani waxaan ahay jiray yani horta waxa ka shaqeeyay jiray mooskan ka shaqeeyay jiray moos waa ka baxay anoo joogo matqan Mugambo meel yiraahdo anoo joogo iyo matqan gudoomiyaha degmada oo markaas ahay jiray Cali Maxamed Geedi oo noorto ah iyo igu go'aamay matqan in yani dawladda in la shaqeeyo in shaqadaas matqan oo mooska in dhaafo in macadka xalane أنا سجيو مرك دور جوري وصلنا نقضي مرك وعد أقبلي مرك جاوان كبحي وحن تجي محلي يعني حلنا أساني وجوابي حاجة دقمة وحساي جوامع صحيح علي محمد جدي يلا هاي مرك أنا وسيد خفوت جوامع كمحني حمر انتقني مرك حمر مرك انتقني حلنا قلني مرك أنا بقول كنت عمل وضع عمل ماشي كلنا أرد بلشة ماشي كلنا مرك حرسنا كجرنا تو برا خذنا حرسنا كجري مرك حرسنا كبعد وحلو قلنا بدلي سد حمل هرجيسة يوجدوا يقريوا لي مرك أنا وحنكو هذه خيبة هرجيسة وحنجوج ويا سد حسن أفرسنا ينجوج قحوت ينجوج إلا وحنجوج تكوي جالي بالمركز أنجلالي أنا لواد الشقفة أنهاي وأحمد كلاس جامع على اليرها ومدحنا لواد الشنتين وحلو القيبي دقموي كانوا القيبي مركز أنا وحلي وقري تكوي جالي قحوتي لصود داولي قحوتي مركز إيمان سبعين كيس قحوتي إيمانين مركز خوشتان كل حجري مركز تكوي جالي وحنك سوقتي هول علصان كسوقتي إلا وحنتجي مطلعني وحنتجي مطلع اللي بدي بورمه waxaa yani mataan dhagaxa fuul iyo agabar iyo sabcad las dhuure intaas aan madax ahay waxaan xiriira galbeedka aan ahay aniga xiriira galbeedka marka xoogtigan ahay marka meesha waxaan joogay ilaa 3 sano joogay marka hawshaas aan qabtay waa soo shaqeeyay markii hawshaan dhameysay waxaa loo bedelay xamar markii bedel waxa la igay jaamada liigu celiyay waxa la igay kaaliya kuwa degmada jaamada liiga marka jaamada hadda muddan joogo wala beddelay waxaan mid kurtuwaarey muddan joogo waxaan la galay iskool booliisiya aan ku jiray iskool booliisiya ka bacdi markii baxda waxa la geeyay buurakaba joogo ilaa Maxamed Siyaad Barre ka baxo waxaan joogo buurakaba marka buurakaba waxaan soo qeydana muddo badan soo shaqeeyay buuraka waxaan la joogay مثلا jawaari aabihiisa iyo odayaashii meesha aan madax u ahay mid qaan buuraka madax u ahay deegaanka buurakaba marka jawaari aabihiisa waa odayaashii madax u ahay oo kamid ahay marka meeshan joogay marka si ilaa Maxamed Siyaad iska baxo meeshan joogay marka sabax ka bacdi waa ka soo baxay marka ku noqday adib ugu noqono taariikhda macadka xalana dadka soo mari jireen xilliga hore dadkii way joog macadka xalana sidoo aha qaabkii wax loogu baran jiray maxaa lagu baran jiray waxa lagu baran jiray badqan hool iyo anti wadaaga waxa jireen niman ruushna waa joogeen niman macallin oo Soomaali waa joogeen waxa kamid ahay maxaa yani macallimka waxa kamid ahay macallin badan joogeen oo yani meesha ma itaalin ku jirin qolada ruushii ahayeen marka macallin badan joogeen meesha ilaa hal sano waxaan barinaynay matqaana muddo anti wadaaga aan barinaynay waan si fiican u baranay marka yani si fiican u qaadanay markii dhamaysanay waa laga bedelay marka waxa laga bedelay meelaha kale loo bedelay marka yani aad si fiican waa ku riyaaqnay yani waxay yani meel waxay yani aad u fiican
حالنا مركين قلني يعني مسؤولين بدنا يجوجين جنرال جوجين مرك يعني آد بيوفعنا ماشى هول بدنا وكواني ماشى مرك توبر في عنق خذني مرك توبر مرك لما يصير كبعدي أو حلو بدل مرك رجيس يو محل يعني يو إيه هو مرك جيلاني قفان دوسي توبرك حالنا صمرين ما الشقة ما لقين جرين مايا معنا وحنا متقعني خول ودان الحزبية مركي يعني مركي صاد كجرنا حزبية على شيء مركي وحنا نخلي خول ودان الحزبية مركي حزبية مثلا عن كبيرني مركي حزب كبير وحلو بدل مركي يعني أخوي قلبات جذو يخريولي قالوا كلا بدل انتهينا بقول كأن خنتو عمل أنا هرجيسة عنكو توصي مركز جيس نجوجي مركز جيس يعني ويا أركن في عنك خاتي تقوى جال مركز تايك بعدي أنا ويلي بس عبسنا ماشي مركز ماشي واحد دجال السعودي أنا ويلي بقى أنا وقبل أنا عبسنا لكن مركز دمبه وحناخذ مثلا عن إني أو استراد ناخذ يعني أنا قاعد ناخذ يعني مركز نمن ساحبين مثلا وقاعدين مثلا دجال كل جري واسم برتي واس برني حتى بصولد بيسين بصولد وشرعيستي بصولد من مركز خارج جري مجري جرين أنا حاولت بصولد موتي وحن شرعيستي قولك أو هرجيسة عن شرعيستي مركا وحنا إن آتو فرن إن آتو بحسن مركا يعني وصف شغل عليه حال ضدك ماشي لجو قري تقصي توبرك حالنا مركا كبحد كذب أو حاجة هرجيس لجو بدله أو هذا الدولة وشغلنا بل كورنا ضدك ماشي سودوين تو إسجاعك هذا محبط هذا ضدك الصومالي سأسكو كل صناعي هذه مركين تكني يعني دق ما كستو أن مرتخيل هذا شنتين دق ما كستو وأنتجيني بركي بعد ما أنا حزبي أنا هاي أنا أوصرين وحكينا أوصرين دق ما كستو أنتجيني مركا دق ما كستو أنت مثلا ولا المرتخ هذا سبت عليه حل بالكامل مرتخات أنقول حجرنا حل بالكامل سودوين أنقول حجرنا هل سودك بعد بالك بعدي ومركا نكسو حلو خوري ميال حلو خوري هذا شنتين أنا وحام كتوسي تكوي جالم كتوسي مركا تكوي جالم مركين تجي وحوتي دولة خوتي سودجين خوتي إيمانين اللي إيمانين أنت إيمانين مرك أنا والحمد لله مثلا اللي بدي يو سبعة لاس دورة يأجبر يو درب حرة انتاس وتجي انتاس مال عن تجي مرك يعني حاجة لو دولة مرك خوتي إيمانان وحاجة إكسوجلان إثيوبيا إكسوجلان مرك إيمانان وقيبين المرك مش واحد ترسس مال لقينا إيه مرك إيمانان وحقوقين متخنا ودولة محقوقين اللي بدي أما متخاني بورمة أما تنلاس دورة أما سبعة أما أجبر حتى أجبر مركي يعني أو حوتي أنجيل أنا من سنين حد وحين دق ما ينختي حرت أجبر من سنين مركي أنا أنتقني ماشي أنتقني حوتي أندجني حد وحين دق ما ينختي مركز دق ما يعني تقول كلا داك ويديو جيلانيو حلقي الدولة الحسيات برا دولتي كسي هوريو أدنى عادي عبد الرشيد أنت بقى إن اسمع عيدا كدولة لماذا نظام كدولة لماذا لا تسنى لكن حكى فائدتي دولتي الله ونحرستي محمد سياد بر مدحويني هور الصومالية نقاس ودنك هذا أقول سي هور مركي وحبر شدي عافماتك دقاله أنت بقرأ وقاضي مركا قف حلقاس كهرنا أو دولة وشقينا ياتا مركا حلقي دولة الحسيات برا بل طريق دي بينه حسوس والله تي يعني أو سياد بر إتاسيتو اسكو مد معها ما أنا اسكو دوا على ذكاس وحاي مثلا يعني حمد حوجة إنا يعني دبع سنايين دبع سنايين مركا دبع سنانتي وحا تمت مثلا إنك عنك سدشت ها هيك دبع سنان تودا يا كعنك دشتي كعنك دشت مثلا وحن قارن مثلا هير عجيب أنا قارني هير أو لقياه ومحجرة مثلا وحا دشت كعنك بركت دشت مثلا يعني وحا تمت مثلا يعني مدني مدي صومالي مدي حقي عدالة دي أصوب بحذي مركا أنت صوتن كعنك صوب وهاي محمد سياد بري جنة إلى يجيو أساس صوب وهاي مركا يعني محمد سياد بري يكوي قل إلى شغينسي أتي أنا أمهات علنا بقول كيو بقول واقرت مركا حلقاس بل وحبرشة عافماتك فري هين وحبرشة عافمات كل فري هين يعني وحبرشتي يعني مثلا قالوا لي السوق هذا مثلا يعني أد لو شقيي إلا ملك الصالة تجي يعني وحيل بدنا الأواولي الميجا ها وحيل بدنا الأواولي مركا أواول فعنا دعي أروي الميجا على السيف عن أتي هذا أي معلمين مركا الله الميجا معلمين أروي الميجا وحيل مثلا كو دول وشقيه هو مطعني وعادي هاي كل مطعني والحلقامي وحبات الجري جرين لعب الجري جرين والحلقامي حلقان مركز اللي قلت أرددا
ومثلا دوك سريع دوك دحه كل waxa la geeyay مثلا مي كي بدو la geeyo كي waxa la geeyo oo kismaayo la geeyo adiga saas yaa ololi aad baa lagu dirsaday waan gartay xilligaas waxa jirtay dhanka kale su'aalaha ka weydiiyay xilligaas waxa jirtay iskuul qasab la jiro dadka yaani xoog wax looga bari jiray ama qofka qasab ay ahayd inuu wax barto yaani oo meel iska soo saaro iskuuladaas oo dadka oo qasabka lagu geyn jiray xilligaas bal wax nooga sheeg iskuulka qasabta dadkii xoogaa yaani matqaan xoogaa waa dib ay u dhaceen laakiin waxaa la tusiyay matqaan in qasabka ay fiican tahay waxaa la tusiyay matqaan iskool qasab matqaan in fiican yahay dhamaantii waa jiray ata anigu waa ku jiray iskool qasabka waa ku jiray marka yaani iskool qasab matqaan waxa say matqaan iskool yaani oo dad lagu riixay ma ahayn iskool dad lagu cadaadayay ma ahayn waxa say iskool qasab waxa loo yiri matqaan si dadkii matqaan lagu guwaabiyo guwaabo matqaani haloo yiri matqaan yaani iskoolkii matqaan ay bartaan waxa ay bartaan in yaani dadkiina wax la baro ayagana wax bartaan marka taas waxa lagu gaari matqaane wax fiican lagu gaari iskool qasabka wax fiican lagu gaari dadkii yaani barashada dadkii matqaani odayaashii 70 jirka 60 jirka 30 jirka 40 kulli matqaan waxa lagu gaari matqaani in wax ay bartaan wax qoraan waana qoreen waana lagu dirsaday waan gartay dhanka kale wax soo saarka sidoo ahaa tusaale beeraha iyo kalluumeysiga iyo dhankaas sidee ahaayeen beeraha horta aniga xagga mooska aan kaaga sheekaynaa xagga mooska waxaa bixi jiray bishii waxaa bixi jirtay 23 kartoone yaa ka bixi marka bixi jirtay bishii ka bixi jirtay 23 kartoone oo moos ah ka bixi jirtay bishii ka bixi jirtay waxaan ugu bixi jirtay yani dhaweyda dhan ilaa afgooye ilaa marka beeraha marka kulli yani mooska aad lagu shaqeynayay marka bishii 23 kartoon aka bixi jirtay saddex marka ma jirin bishii saddex marka min 20 ala saaray marka xagga mooska waa fiicnay xagga galeyda sisinta moordida araakada wax kulli yani ayna waa laga shaqeynay qaraha ambaha bambeelmada كل يعني وفريا وحصو في عنا يجري يعني أو أدو في عنا أو دير سدي مركب لو سار جري سو جديد وحياة كلام لو سودا بنجرين مركب باور لو ساجري وحلا ساجري مثلا وحلا قرا لا ساجري يعم بالا ساجري مركب كلا ساجري مركب حسا قوة الياني وبحجرين هو البرق دحي كو تليانيga يعني عادي هاي كو برنا عادي هاي كو برنا دحا خارج جري مثلا قرها iyo cimbaha iyo ayaga khaadir jiray marka yani waa laga iibsan jiray miyaa xiligaas yani shirkada jirtay ma dawladda ma lahayn shirkada lahayn shirkada مثلا Somal Fruit ayaga iska lahayn مرور التلياني بيجري تلياني ذو كبحي ماشى سومالي فروت قادتي سومالي فروت متقام مدحديدا يا ayaga saari jiri marka shirkada ay jirto mataqaana ninkasta beeriisa wixii ku soo baxo lacagtiisa waa xaalati jirka kashkashada ugu jiri ali moos asawiro beer badan ku yaaleen janaale unguji wagaadi mushaane kulli waxaas dhan waxa jiray moos ka bixi jiray la qoryoolay moos ka bixi jiray moos kaasito wal dhufi jiray centriyada ku jiray centre C centre A centre B centre A centre ma taqo moos waxa bay jiri oo intaas qafood intaas qafood marka ka shaqeey jirtay ilaa 300 400 qafood ka shaqeey jirtay meesha oo nguri kale jiray oo mooska ka shaqeey jiray ko suri jiray ko gooy jiray ko kartoon ku shubaayo ko yani matqawaaska ku shubaayo ko yani mataxamaale yani baawrka saaraayo adiga soo waa laga shaqeeysan jiray dadka badi mooska shaqeey jireen dhawey waa ku deganayeen mooska waanu ku fiicnaayeen meesha deganayeen nabadooda ay qabeen marka waa gartay laakiin dawladii dhexe oo adigana way joog u ahayd inta badan waxay xoog saar jirtay wax soo saar dadka waxa lagu qasbi jiray in yaani beertooda ay fashaan in xoolahooda ay dhaqdaan in badooda ay يعني waxyaabo munaafacaadka kala soo baxaan marka xilligaas iyo hadda markii la isbarbar dhigo balka war maxaa ku muuqanaa inuu xilligaas ayto xilli waxa say matacni oo yani tala jirtay yani xukun jiri xukun rasmi jiri yani marka yani xilligaas ayto waxa say xilli matacni oo la xukumayo oo si aadaab ah si tartiib ah nin kasto meesh ka shaqeystay kii bad ka shaqeynay badiisa oo maamulay kii beeraha ka shaqeynay kii matacni xoolaha ka shaqeynay marka yani nabad ajirtay يعني واحد مشكلة مجرين نظام محمد سياد بر نظام مسؤول ما يستي أرنتيس نظام واقرتي مركا بربرك كذب
كل قفوين والدنا وأنا جوكتي بربركي قدب دولتي دلك الصومري مع علي مهدي أما نيك اللي يجري عبد القاسم أما عبد الله يوسف أما شيخ شريف إيه حصل الشيخ هذا فرماج جوجل أنت حسب الدولة بمالك كينيسي أما واحد من أكسني قبنيسي مرك هذا الدلك ماشي عمره ماشي حلقة هراء كورة حلقة هراء هذا وحا دليل هاي مثلا مركي يعني أي مركز أي جوين يعني وحاجري مثلا خص بدنا جري يعني إبات بدنا جرتي يعني مشكلة بدنا جرتي وقات وفولحن وحتى إسدل وحا كم بود مشكلة بدنا جرتي مركا حدا تاس مركي سو كوو يعني تاس يعني وحخبط كذا ما فعلا ويراي ألس ويراي وح تر ما قبنا ها مجرين هذا قال سوي يجري مركا تن waxaad ku garanaysaa tamadkaan waxaad gartan inay fiican tahay waxaad garanaysaa suuqa hadda xamarka soo qabo weelka soo qabo suuqadu waa degan yahay galabtiis si fiican loo adeegtaa waa degan tahay tartiib marka meeshay ka soo galeen dadkaanito farmaajo iyo xasan على غيره ما كذا نصيب أي لين ما حاجة ما يشرك السوق لأن حاجة دوينها أي دجين dadkaasi dadweynaha waa diji waayeen marka xamar waxa la fooda dhacirtay yani qori qaado kan boob hadda ma jiro dadkii waa degeen xamarkii waa toosan tahay dhibaato ma jirto marka dadkaaristo meeshaas ay ka soo galeen saasayna ay ku guuleysteen bal ka waran hadda xilligan dadka taageero intee la eego u hayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dawladnimada sida u jecelyiin dadka ka waran arrinkaas taageero weyn ay u hayaan maxaa jira dadka taageero u haynin dad xogaa waxa mataan oo wax ku jiro waay laakiin ninkii waxaan ku jirin yani taageero weyn loo hayaa dadkan marka wax badan ay qabteena waxa hadda waxa dhibaato waxa keen mataa wax yaraanta laakiin lacag yaraan loo fiir waxa loo fiiraa mataan wax qabadkooda fiirna wax qabadkooda mataan idganaantooda iyo qaabkii yani ilaahay ku toosiyay يعني نظام كانيتو أو وناكسن أي كسعدان أو سايهين وح إلهي كتوسي نايساي إلهي كتوسيها لكن تذكر إلهي مكتوسي لك هنا ما قرتي مركا ساسوا يعني وحواي مثلا تذكريتو ووضن حدا إيو حوجة وحلينو مثلا حوجة العكيران iyo dhibaata jirta kaasna matqaanay wala gugun gaara marka Soomaalida kartay leedahay Soomaaliya matqaan maal kaliya wax weeyso maal kaliya marto xirta matqaanay kartay rabta karti ha marka maal wala hela wala waaya laakiin karti iyo hufnaan iyo deganaan iyo qalbi fiicnaan ma la helo marka dadkan xasan khayre iyo farmaajo waxay ku adkaadeen yani nidaam oo degan وانا اله الجرا اله توسي اله توسي سؤال كلا هذا كويدي xilliga hore caasimada muqdisho waa ka shaqeysay waa joogtay bal ka waran meelaha oo degmooyinkan sida xamarweyne iyo boondheere iyo shangaani degmooyinka hore oo dadkii talyaaniga xilligooda joogay xataa maadaama ay joogtay meelaha darjiinooyinka meelaha wax lagu akhristo iyo waxbarashada iyo si guud sharxaad naga sii xamarweyne iyo agagaarkeeda horta meel hadda waa degan tahay xilliga hore oo ka hadlaa xilliga hore oo nabadii habeenkii 9 saac 8 saac la iska socon jiray waa socon jiray yani hada loo socon jiray waqti waxaad dabashaysaa hada loo socon jiray yani habeen 6 saac 7 saac riwaayad la geli jiray tiyaatarka furnay رواية عبد الله حسن توسع رواية على بحجري يعني وفرنت حمر يعني حمر مال حرم بجرين يعني كله اسك فرنت جرديد كله فرنايين marka yani aad u fiicnaayeen marka waxa siyaabir ka bacd madqana jirdooyinka waxa dhisteen madqana yani aan haboonaan dhisteen dad aan haboonaynin aan dhisteen xilliga hore laakiin dawladda lahayd dadkana ku nasi jireen isriix jireena hadda isriix ma jiro marka dad haysta waqti marka tiyaatarka da wax ka weydiiyo ma xasuusan kartaa tiyaatarka qaabka uu dhisnaa sidoo ahaa iyo inkastoo hadda burburay hadana dib loo dhisay xilliga hore iyo fanaaniinta ima jiray dadka sida u xiisan jireen tiyaatarka dadka fanaaniinta iyo shacbiga isku mid ahaayeen yani waa isdhex geli jireen fanaaniinta ma kasta jireen xasan ala samatr iyo fanaaniinta waaweynka ma kartay meel kasta tigi jireen waxay tigi jireen markaan gudaha tigi jireen meel kasta tigi jireen xamrooyin tigi jireen waa soo jireen caadi loo soo jiray waa caadi marshoole iyo caadi aan u sheegaysta jirnay yani saxaban wax dhuumishaal iyo yani meel gal ma jiri jireen cabsi ma jiri jireen yani caadi saay markaas caadi saay tiyaatarka waa fiicnay
marka ayaan daro burburkana dhacay laakiin maana mar hore tiyaatarka yani wax lagu doorsanay ma jiri jirin meelaha dadka laga hayo qaybka ah dadka laga hanuuniyo meelaha dadka laga hanuuniyo ay tiyaatarka waxa ay meelaha dadka laga hanuuniyo riwaayad badan la dhigi jiray nooc kasta kuwa banaadiriga riwaayad dhigi jireen Axmed Naaji oo kale riwaayad dhigi jiray ma gartay yani riwaayad badan la dhigi jiray meesha yani Sangub iyo yani waxa jiray matqani abwaab weyn ay jiri jireen oo caadi ah matqani oo kuwa gabaya ay jiri jireen heer guura ah kuwa guura ah oo yani oo gabayaayo marka yani waxa badan ay jiri yani oo aad u fiican markaas taariikhi ay jiri aad wanaagsan ay jiri yani oo la soo koobi karin marka hadda waxaan rajaynayaa taas inaan soo noqon rajaynaa insha Allah su'aal kale hada ku weydiin xilliga hore waxbarashada sidee ahayd yani dadkana sidee u jeclaayeen xilliga hore waxbarashada waxay aad matqaan markaas xilliga hore waxay matqaan wax kasta waa yaali lacag wata ma lacag laan lagu bari jiray lacag laan waa dugsi sare kullu lacag laan lagu bari maxamed waqtiisa lacag laan lagu bari jiray marka lacagna waa taalay ma kasta dadkan waa deganay waxbarashada yani aad loo jeclaay هذا اللي جعله مثلا براو كله مركو كله محل يعني قريريو كله ما خبرش هذا آت وسعتي يعني جامعة سعودين يعني إسكولات كسعودين واحد بدنا سعودين آت أيوة فينات مرك هذا سؤال كويدي مركو مقال حيوان يعني أنت بدن ضدك البحر كصبحه مقال قرحون الله مرك محل مقالوين كلا كجدون تاي مركو حكي جدون تاي مركا dhaweyda ay haystaan dhaweyda marka janaal kullu ay haystaan marka waxa gudunta marka waxay leedahay degado ay leedahay oo ay ilaha jirtay moos lagu saari jiray marka khudaar badan iyo moos kaasito iyo waxbarashadoodana waa fiicneed marka yani macallimiin badan waa joogeen dad ilbaxna waa ahayn heer marko kastay yani dad waxay yani oo karaam leh ahaayeen marka baraawo kale hatta baraawo saasoo kale idana dad waxay ilbaxay ahaayeen marka anaga waxaan leenahay dad heer banaadir midqaan xadaradan leenahay xadaradan waxa midqaan lillahi nim way laxdaw mu jirto badad lillahi nahay wax barasho jecel dadka soo dhaweeyay jecel dadka maamulka jecel aan nahay manihi dadka yani ana مثلا yani gudoomiye degman ahay wiligay mataa guri ma dhisanin yani waxaan wadani ahay yani caadi takoo jaal markii buura antay kulinta waxaan dhay matqana wiligay guri ma dhisanin caadi ugu dawladda ugu shaqeynay ilaa aan guri ma qabo marka saas waxay ka dhimata yani wadanimadeeda iyo daacadnimadeeda ilaahi nimadeeda yaan ku helay marka hadda dadkii ku wax dhistaan kulli waa dhinteen aniga waa noolay wili sababta waxay matqana ninkii lilaahi ah oo laqad waan ahayn oo yani oo daacad ah oo maaldu aan dhaceynin waxdu aan dhaceynin samar aan jir ma qawaniiso badna ma xawnaayo beerku ma xawnaayo mar waxa caadi atnaqnaysa waa karta ugu dambeyn gabagabadii barnaamijka ku dhownahay Jeelani su'aal kale hada ku weydiiyo dawladihii dalka soo maray midba meel ay keenaysay midba meel ay ka qaadaysay marxalado kala duwan ay soo mareen hadda dawladeena noo dhisan oo madaxweynaha ka yahay madaxweyne Farmaajo nidaamkeeda iyo habka u shaqeyso ka warnaadeen wallahi dawladalkii mas'uulna soo dhaafa tan marna ma isku naqnayaan tan wax rajayna matqana 30 sano kale inay hayso أنا جينا شغل من أهم تصل رجال صدق كل ساعته إنه هيسن رجينا وأنا هينسا بحاجة دت أو داعد واي دت لله واي دت الخدمة أنكجرو واي بركي حد كسوقه مثلا مذك كسوقه مذك معك داعي يعني ربشة كداعي ربشة ولا حلي بحلو حلي علمي له هذا علمي له هذا قف لمنن قف إذا لمنن قف علمي له هذا لكن وحريم مثلا أي خص أي جليان ضد الربي خاصة أي جليان مشكلة أي جناء إيربين لكن مو توسن مو نخنن بركي waxay u qadkan lillahi ida ay ku socdaan farmaaji iyo xasan khayre saasay ku noqotay laakiin dadaaro mata mudug hada yani oo saas loo dhisay sida loo yimid inay qasaan ay habeen ay qasa isu biyaan laakiin ma dhicin wala guuleystay hada waa guuleystay mudug si fiican u dhismaysaa mudug oo dhismid dalkan ma ismaayo qorto mudug si fiican loo dhisay way ma gartay marka dawladda hadda wadadii saxaneed cagta saartay qaatiyad boqolkiiba cagta saartay in kasto dhibaato jirto laakiin dhibaato laga baxaa hadii badayna helno anaga dib ka bixina بس بدس إحنا الأربعة لكن كو بدل مثلا يعني أو كو يستينايو كواسا دلوين أنا يعني بدس وهلنا حوك وهلنا حيل وهلنا لكن بدس حبانتاي إن حوك لو جهله حيل لو جهل كرو بركة جوا وحقولنا مثلا استمر بدنا كوجران كو بدنا كوجران بركة
baddaasita waxa loo baahan yahay marka in xoog lagu qabsado kukunyadaas iyo kuwa ayaga oo la jiro waa gartay marka gabagabadii barnaamijka soo gaarnay ugu dambeyn marka dadka ku daawanayo TV-ga daawanaya maxaa fariina u diray dadka inay isjeclaadaan inay niyadda isku furaan in yacni oo qofka kale cadaaladda ilaaliyo qofka kale inuu xaq dhooro oo dhanka wanaagga maxaa faray dadka ku daawanaya waxaan leeyahay mataqaanaa Soomaali dib ajira dibkaas ku noolaada dibkaas marka u adkaysta waa la gaaraa waa dibku waa laga baxaa annaga dib waa u adkaysan karnaa Soomaaliya nahay Soomaali waa karti badan tahay geesi waaye يعني دبنا وكلا تقانا كرتنا والله مركب وحن كل تلنا صوماليي اسكجيرا يعني لدقن أنجا مالا لنا هاي بدء لنا هاي بنزين لنا هاي أو شرالا لنا وحكسنا لنا هاي مركب أنت اللي هلايو إن صبرتان صوماليا ساسا كل تلنا صومالي إن صبرتو مكستي وحكستوا وهلنا وحلو بين الصومالي إن يعني صبر أي خالته مكستي دولة المكان قاعد نسيو وكبحي waagaag daawadayaal intaas ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabeyno barnaamijkii way arag oo toddobaadkan Muqdisho si toos ah kaga imaanayay anigoo Cabdirashiid Sandheera idin soo saaray toddobaadkan waxaa marti ugu ahaa Malaaq Moorshe Jeelani Sheekh Muumin caalim oo kamid ah waalidiinta Soomaaliyeed muddo dheerna wadankan ku noolaa dhanka kaamirooyinka iyo farsamada waxaa barnaamijkan gacan ka geysay Cumar Buule barnaamijkan kan kiisixig inta ku kulmeyno دعوة سيدة نبتقلي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه هذا كوما العلنا سودو إن شاء الله thank you